markay gooja cadda tageen ay yidhaahdaan xoogaa naga durkaanu idila hadalle loo joojin waaye 9 bilood lala dagaalamay ee markii dambe ducaday ducaysanayeen iyo waxay kalaba ha noqotee ay ciidankii ay iska soo saareen markii ay mudaaharaadeenna si fiican ay ula macaamili waayeen waxaan u soo jeedinaynaa xukuumadda mar haddii 15 sano dadka qulubtooda ay hanan waayeen oo ay qancin waayeen markii ay mudaaharaadeenna si fiican ay ula macaamili waayeen markay gooja cadda tageen ay yidhaahdaan xoogaa naga durkaanu idila hadalle loo joojin waaye 9 bilood lala dagaalamay ee markii dambe ducaday ducaysanayeen iyo waxay kalaba ha noqotee ay ciidankii ay iska soo saareen ee guumays la yimi waxay ahayd wada hadal in la furo haddii dowladdu ay run ka tahay ummaddaasi inay ummad Somaliland tahay oo xuduudkii Somaliland ay ku jiraan mar haddii halkaa la yimi dhiig dambe inaanu inaga khasaarin waayo ka xagga joogana waa u baahanay kana waa u baahanaa muslim dambo dhiigiisu daato xidid iyo xigaal dambo isku baabaa amnigu khalkhal u galo fasaad badan oo dhaca intaaba midna uma baahnin mar haddii ay joogsadeen oo dagaankoodii ay yimaadeen in wada hadal la bilaabo ayay ahayd waxa nasiib darro ah in waxa weeye xaaladii loo ololeeyo in beeluhu ay istifaacaan oo dagaal beelaysan la galo taasina waa taa aynu ka digayno khatarteedana keenaysa inagoo ka duulayna bayaanaadkaa soo baxay waxaynu u jeedinaynaa xukuumadda dagaalka laga dhex wada beelaha ee la hurinayo dad meel kala tegaya ma aha dad waxa weeye wax badan wadaaga weey tuulooyinka qaar baa isu muuqda meelo badan baa la wada daaqaa 100 kilomitir baa la isxushan yahay in colaad iyo nacayb iyo fitna aan dhammaanayn la dhex dhigo anigu waxaan u arkaa qaran baabiis baan u arkaa iyo qaran la ilaalinayo maaha qaranka badbaadadiisu waxay ku jirtaa in waxa weeye wada hadal lala furo ammaanna la qaato waxa weeye farsamooyin kale loo gudbo